dadweynaha ku dhaqan magaalada Saylac ayaa saaka aroortii hore cabasho xooggan ka muujiyay midiga badda biyaha badda oo soo galay magaalada Saylac iyagoo ku tilmaamay in biyaha badda ee magaalada Saylac ay habeenkii xalay toole soo galeen gudaha magaalada Saylac iyagoo xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay in si degdeg ah wax looga qabto xaaladdan guud biyaha badda ayaa ka dambeeyay kadib markii roobabkii gugaha ay ka urteen magaalada Saylac ayaa muddooyinkii ugu dambeysay waxa fatahaad xooggan ku haysay biyaha badda kuwaas oo ku soo fatahaya magaalada dhexdeeda haddaba qaarkood hadaladooda waxa ka mid ahaa biyihii baan soo galaan ka soo qaxay adiga alaabtii dharkayga arkayna ku soo waan gartay biyaan goormay soo galeen magaalada xalay bay soo galeen wax midig la yiraahdo soo baxa qarku dayax soo baxo habeenadan oo dhan way nagu jireen xalay bay u badnaayeen oo mooskii daadkii waxba jabiyo imika nagu soo jabeen oo ka day wana alaabtii guriga soo gurno intaasaan xidhanahay intaan wadana iyo guriga ka fayooba iyo marka xukuumadda Soomaaliland waxaan ku codsanaynaa deena biyaha waxna sidii awal ay xunnaayeen nooga xidho intii karaakayga oo qabanna anagu mooskari weyn waa wax dawladda ugu tala galay xukuumaddu waxa naga muustaan u leenahay biyaha soo galay badda wax ay dawladdu u qabatayna ka shicilka ma jiro waxa laga yaabaa in xanuunba ka qaadaan shicilka markaas ay biyuhu u joogaan oo xanuun ka dhashaan marka waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliland inay ka qabato wax biyahan badda ee soo galaya gacankeena ka xidhada dadweynaha haday u dananayaan weey hadayna u dananayna waxba maamulku ma hayo marka waxa weey anoo xalayahay dawladda ka qabato wax biyaha badda soo galay si kastaba ha ahaatee biyaha badda oo muddooyinkii ugu dambeysay soo galayay gudaha magaalada Saylac ayaa waxaan tir cid maamulka oo ka hadashay arintani isla markaasina jawaabada ka bixisay Xuseen Maxamed Cabdilaahi Shil News magaalada Saylac.